soo dhawaada asxaabta sharafta leh ku soo dhawaada gobolkii bari ku soo dhawaada Calmiskaad ku soo dhawaada Khaas Casayr ku soo dhawaada Geesaley gobolka bari ku soo dhawaada buurihii oo nabadgelyadooda iyo xaaladooda gacanta lagu wada hayo bad iyo bariba buuraha Calmiskaad silsilada buuraha Golis oo halka ka soo gasho gobolka bari oo ilaa badda halkaas sida ugu teedsan ciidamada sharafta leh quwadda geeska Afrika gobolka waxa nabadgelyada looga dhigaya loo badbaadinayo gacanta Soomaaliyeed ee Puntland loogu soo celinayo oo shicibka reer Puntland loogu nabadaynayo waa ka faa'iideysashada ka abuurista nolol qurux badan badeeda iyo barigeeda iyo xibaheeda quruxda badan ka bilaabista ama ka hirgelinta warshado iyo ganacsiyo kala duwan sida warshada timirta soo saarta waa jaaniska inoo bannaan warshadaha sameeya waa fikradaha meesha yaalla timirta marka laga soo gudbo warshada horta timir waxaan aragnaa intaas oo kartoon laga keenay Carabaha ama Middle East-ka laga soo gurayo ama Indonesia ama Bangladesh meesha doona laga keeno laakiin timir badan aan maleynaya beerta ugu weyn ee Soomaaliya Geesaley bay ku taala gobolka bari xeebaha Qandala iyo Muracanye iyo Mareere iyo waa gobolka ugu ballaaran Soomaaliya gobolka bari khayraadkiisana lama soo koobi karo intaanu ka garanayna kaliya hadaan sheegnay iminka magaalada Geesaley waxay isku darsatay sida xogta saxda lagu hayo kalluunka isagoo hadalba maleba badeeno dhanba khayraadka kalluunka Ilaahay ku manaystay beerihii timirta xijigii beeyadii dhuxul dhagaxdii baa u dheer waxaan aragnay dad muwaadiniin oo hawlaha ku foogan boqolkiiba xataa 20 boqolkiiba 10 meen arag oo ka faa'iideysanaya dhuxul dhagaxdii ka faa'iideysanaya xijigii kalluunka ayaa marmarkaad qiimeysay oranaysa dadka Soomaaliyeed 40% xataa kama faa'iideysan beeraha timirta iyagu meel aragtay timirta Geesaley box ama kartoon ay ku qoran tahay oo caasimadaheenna iyo magaalooyinkeena yaala waa jaanisyo badan oo ka faa'iideyso u baahan xeebaheena hadda xeebta haddaad maanta ku dalxiiso ama iltag ama Mareere tag ama meel way yar tahay xeeb aad ka heli karto inaad magaaladii ku soo noqoto caagad biyo oo meel aad ka iibsato qabow maartay way yarta xeebta waxaa lagu yaqaaneen street food meel maartay wadooyinka cuntooyinka lagu iibiyo lagu soo dhaweeyo gaari cuntadii sida oo ama sandwich ku sameynaya ama kalluunkii ku dubayo oo waliba lacag yar ka siinay wuxuu qalma intuu baddi buu dhex ag taagan gaarigu ama meherada ka ag furan badda sariirihii yaraayo maartay qof markuu badda ka soo baxo iskaga jiifsanayo qorraxda maartay iskaga raaxaysanay daladii yareed kuule hadda qorraxdu aad u kulushahay juuskiyo marba maartay sharaabka ayuu nooc meesha lagu shiidi karo oo mar walba aad koobka ku dhufanayso hadda waxa weey hawlaha haysta marka qofku baddi tago ama ayl tago ama baddi boosaas tago waxa weey inuu baddi intuu soo galo soo qaboojiyo ka soo cararo sababta wax uu naftiisa jirka sare marka qaboojiso bal jirkii gudaha saad u qaboojinaysan biyo qabow heli maysid sharaab heli maysid sariir isku kala bixis meesha mad jaanisidaas oo inagma faa'iideysan dadkiinuna mar walba wuxuu ku soo celceliyaan dalka shaqo la'aan baa ka jirta kama jirta inagii shaqooyinka muhiimka ah in la abuuro oo shaqooyinka aan lagu badnayn in abuurno taladeeda ma haynaba hadda buurahan oo dhan wayna loo nadiifiyay shaqooyin yar baa ku haray aan saa u badnayn waa si gabaabsi ka xoreyntii cadawga dalka ku soo duulay wax yar baa ku haray wax yar inta yarna meelaha waa nadiifin marka meel guri marka dhismalihiisa la dhamaystiro waxa uu haray kaliya wayna qoladii nadaafadda iyo dhaqi lahayd oo wixii ku daadaatay wixii ka soo dhaqi lahayd baa maartay u haray marka hadda waxa guri la dhamaystiray oo nadiifinteeda u hartoon xeebaheena kale sidoo kale markii hore nabadgelyo waa in xeebta dheer oo ila Puntland Soomaaliya saa u raacsan marka guuliga gobonimo leenahay
ninkii badda ka faa'iideysanaya, ninkii beeraha timirta ka faa'iideysanaya, ninkii xijiga meydiga dad kooban baa ka faa'iideysta. meelaha qaar waxay u xaniban yihiin xijiga iyo meydiga in laga faa'iideysto wada la'aan. buraha calmiskaad wadooyin ay dadka reer guuraaga ama dadka aaga degan ay samaysteen ama ganacsiga yar iyo raashinku u maro. meelaha qaar baa madib gaariba mari karinba, in diyaarad ama badda loo mara mooyaan. insha Allah horumarku waa isku daba xigaa. dadku maalinba maaragtay qofku markii uu meeshii arko ayuu baahideeda gartaa, sidii looga faa'iideysan lahaa uu ka fakeraa. awal xaalado kale oo amni darro ka jirtay aaga, laakiin haddeer kadib insha Allah shacabka iyo dawladda iyo Soomaaliya oo dhanba waxay soo jeesan doontaa dhulkan ama haddii dalxiis ahaan looga faa'iideysan karo, haddii macdanta lagala soo bixi karo, haddii beeraheeda la sii badin karo. meesha geedka timirta ka baxday oo timirtu ay ka baxayso geedo badan baa ka bixi kara, cambihi baa ka bixi kara, saytuunkii baa ka bixi kara, saytuunkii baa ka bixi karta, saliidan iminka dibadda inuu ka kaysano saytuunka la yiraahdo waxaan filaya inay ka bixi karto. waxyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa marka in dhulkan lagu safro, dhulkan la soo aado, dhulkan ay Puntland Soomaaliya dadka ku nool oo dhan bay yimaadaan. reer Puntland aysan goboladan dhankan soo xiga oo caasimadii ka agdhowyeena lagu warwareegin, war dhinaca badda iyo dhinaca buuraha loo guuro. ninkii dalxiis ka hirgelin kara, ninkii maaragtay meelihii badda iyo buuruhu iska galaan degi kara, mashruucyo haddii ay tegi karaan meeshaas wadooyin iyo qaabkii dadku isku tashi wax looga dhisi lahaa. hadda qof walba oo dhulka u dalxiis taga ama wadada maraya haddii la yiraahdo $1 qof aan awoodin baa jira $1 bishii ku bixi ama labadii isbuuc $1 bixi. wadooyinka ugu waaweyn baa la marin karaa, waa laga faa'iideyn karaa. Soomaaliya oo dhan sida maarta caasimadda Garowe loo dhisay waa example qurux badan. inkastoo mar xog laga soo diyaariyay nin wariyaa uu sheegay inta mashaariicda iyo maarta dadka shisheeyaha UNT waxa looga faa'iideystay World Bank iyo inta dadku shacabku dhisteen baa ka badan oo $1 iyo $0.5 la iska ururiyay. marka buuruhu waa qurux ururay way haddii wax yar bari wax weyn bay noqdaan. insha Allah dhulkan oo dhan waxa laga dhigi doonaa dhul caalami ah, dalxiiska ku habboon. shirkada iyo aynu ka sameyn doonaa macdanta qoda baara, dawladdu dhan walba uga faa'iideysan doontaa. sawirkii baa laga soo saari doonaa, niisti cadeed baa laga soo saari doonaa, nuuradii guryaha la marin doonaa laga soo saari doonaa, hatta istambarkii rinjiga painting guryaha la marinay baa laga soo saari doonaa. xabagtii maartay gaamkii oo dhan baa laga soo saari doonaa. ilaa xanjadan ay dibadda kala soo degeen waxyaabaha ugu yaryar ku jirta ayaa laga sameyn karaa. maartay meesha hadda xijiga meydiga macal xanja ka soo bixi karta. waxyaabo badan waa wax ugu yar iyo wax ugu weyn marka la soo qaado. barfumiska adduunka ugu qaalisan baa ka soo bixi doona. shirkadda kambaniga barfuunada Puntland soo saar ayaa laga sameyn karaa. maartay barfuunada udgoon adduunka ugu qaalisan meel kale lagama keeno, waa malmalka iyo meydiga iyo xijigaas ka soo bixi kara. marka bad iyo bariba ka faa'iideysasho wanaagsan. Ramadaan Kariim mar labaad 10kii dhexaynu ku jirnaa, 10kii dambana ku soconaa waynu diyaar garownaa.